كيسي وكو خلاف أدور مسجد سوق على هندي سؤال هندي كوي هلا سوق على وحنا مالنا صلاة إن المغرب أهيد إمامك يا مركب فاتحة دي آخرية فاتحة دي مركب إمامك يا آخرية ولا الضالين مركب يري آمين أنا نقول لجهر أنا هذا المذهب كي الشافعي أنا لقب صدي وحارك مساجد فيه كلجي آمين عن كليه كلجي كبحث مركب واسك لقب صدي هوصل نسجا آخر آمين تي إلا مسجد مركب سمح له قاعد حنفي إنويه مسجدك حنفي وها مركب ولا الضالين مركب اللي يري آمين كبعد واحد أركي كلجي يا عد كاسب يرو كلجي يا عد كمساجد كم مغضي آمين كير كبعد مركب صلاة كبحني يعني إنه إلا هنود وحي بديهين حنفي وبديهين لو كان هنود حنفي وبديهين مركب ودد مذهب كودي إلى الشناية فوضى الدين دواي يعني قفكم مذاهب بدن إن ودن كلا سوق قريب وحكرنا لنا يسا فوضى الدين وحكرنا لنا يسا خلافات شعب كإن لسكهر كانوا وحكرنا لنا يسا مساجد دي إن لسكهر كانوا وحكرنا لنا يسا بلبلة يفساد بلبلة يفساد مسائلك فقهية يا كرنا لنا يسا وحكرنا لنا يسا وكلا شعب كي إن الدين تي كآمنان سوء ظني إلا ودن كدي هل مذهب وصيدريه وهل مذهب ودن كاللغو حكومه دينت اعتقاد كي دادكو أي كقبين وحنقنا اعتقاد النظيف والسليم لكن مسائل كان هدو بسم الذي لا جهره كانوا سريسته كانوا قنوده كانوا يراهوا بدعه كانوا يراهوا صلاة دي هدي إسلام تلقوا فره سدح دلقة هدي لقوا فره هل دلقان كحسابنا كانوا يراهوا قول الجمهور وحويد رجع ملهن إلا ننك لنا يسوى مرتمويه دتك عامدها وخلافات كان هوسه iyo adilada aan ka warqabin maxay ka aaminayaan diinta islaamka adiga qof baaxitha tahay sheekha tahay kutubta wad ka warqabtaa iyo madaahibta mawaaqifta ay ka taagan masaa'ilka wad ka warqabtaa adiga laakiin qofkii suuradaas wadanka kor ka sawira aamina muuqaalka noocaasna wadankii Soomaaliya u sawira muxuu ka aaminayaa diinta islaamka wuxuu ka aaminayaa diin tanaaqud wadata inay tahay wuxuu ka aaminayaa diin arkaan iyo qawaacid iyo usus ay ku istaagto aan lahayn diintu inay tahay wuxuu ka aaminayaa wadaadadii inay yihiin koorgeel sida caamadu ay dhihi jireen marka waxaa ka imanaya suu dhanni bil islaam sidaas awgeed waxaan dardaarmaynaa dadka balbalada in laga daayo ومذاهبته فراها بدن أو وطن كلا سوق كليني ونول بامركو كتاب كأركو وقيلة إيه مذهب فلانة سداس قبه إنه يراه مجتمعيا كوه جامنا هي مساجديا كوه جامنا يا أو يراه إن لقد داي وطن كانوا حوي أنتو إسلام كقاتي وقديم إلى عهد مدينة المنورة أنت إسلام كسوق جارين أي صومالي إسلام كسوق جار ضد مسلمين هي هاي كان عالم كان سلاسة الديوان كشن ومسألة قضية عالمية قضية طائفية معه قضية كوحيد معهن وقضية عالمية عالم كانوا حول الديوان كشن سومالي إسلام كانوا قديم كويهي بقولك وبقولنا أي مسلمين وذاتك أركتي قونية تاسك قبا وأركتي كقطنة الضائفية عنصرية كقطنة عنصرية ما دام ودك مركز سدا وياي انتاس وصوماليا اي دينته هيستي مذهبك الشافعي قال لو دراسيني اسغا قضاياتك لو كلا حكومي فتاواتك اسغا لو دسيي فوضدنا اساسي ku yaraan karta laakiin nin walba hadii uu jaamacadii ka soo baxay jaamacadii uu ka soo baxay 4 sano dhiganayay iyo 2 sano dhiganayay haddii ila jaamacadeeda waxaan ku soo arko oo madhaban Soomaaliya aan keeni tanina maxay imanay kan xaq inuu ka keeno Xanafiya kan Xanaabila xaq inuu ka keeno kan Maalikiya xaq inuu ka keeno suuradii marka wadanka shacab mutadayyin aha abra alqurun almaadiya shacab mutadayyin aha waxa imanaya muuqaalka kore in lagu jahwareero adii haddaad baaxis tahay
haddaad adilada si loo kala tarjiixinayo aad soo akhrisay dadku ma daraasayn wax adigu aad daraasaysay marka si muuqaalka waddanka loo qurxiyo diineed balbalada iyo fasaadka iyo khilaafaadkana uu u yaraado in madhabka shaaficiga waa in la qaato imaamu shaafici raximah allahu tacaala waa naasiru sunna fii cahdihi a'immada xadiiska saasay ku magacaabeen ninkii sunnada iyo axaadiista nabiga u hiiliyuu ahaa sala allahu calayh wasalam madhabkiisuna qawaaciduu leeyahay oo kitaabkiisa alrisaala ayuu sheekhu ku qeexay madhabku waxa uu ictimaadayo waana madhabka kali ah oo imaamkii madhabkan qoray xararahu biyadihi gacantiisa uu ku taxriiriyey qawaacidkiisa iyo furuucdiisa labadaba sheekhu qawaacidka madhabka uu yani deliishanayo iyo maraajicdiisa kitaabka alrisaala uu ka qoray furuucda dhinaceedana wuxuu ka qoray kitaabka la yidhaha alum fahuwa madhabun munaqaxun wa muxararun biyadi saaxibih waa madhab marka munaqax muxarar ah qofkii madhabkan iska lahaa gacantiisa lagu taxriiriyey usuulan wa furuucan waa madhab saas u qeexan oo madhab yani marjiciisa uu yahay kitaabka iyo sunnaha nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ijmaaca iyo qiyaaska sida macruufka ah looda ogsoon yahay intaas ayaa masdar u ah madhabka imaamu shaafici marka aan leenahay madhab imaamu shaafici ha la qaato oo ummadda balbalaha laga daayo macnaheedu ma aha ra'yi rijaal ha la qaato dadaa warka si xun u qalloocinahay madhabka ha la qaato macnaheedu waa kitaabka iyo sunnada ha la qaato lannu imaamu shaafici raximah allahu tacala intuu meel fadhiistay miyuu ra'yigiisa noo soo qorqoray hadda ka hore waxaa la yidhi imaamu shaafici raximah allahu tacaala isagoo meel maraya sida imaamu albayhaqi kitaabkiisa manaaqibka uu ku qoray nin ay ka hor yimid markaas wuxuu yidhi sheekhow xadiis saxiixa ma qaadanayo uu yidhi oo madhabkaaga khilaafsan ma qaadanayo yidhi kaniisad inaan ka soo baxay miyaad ii malayso yidhi cibaaro kale waxay ahayd zunnaar inuu dhexda iiga xiran yahay miyaad u malaysa sunnaarka waxaa weeye waa calaamad lagu oqoon jiray dadka ahludimada ah oo gaalada ay xiran jireen ma zunnaaraa dhexda iiga xiran uu yidhi yani ma gaalaan ahay marka aad leedahay su-aasha waa khaldanta aad leedahay xadiis nabi ma qaadanay maxay tahay maxaa kaloo masder annaga noo ah maxaa kale oo masder noo ah marka la leeyahay madhabka imaamu shaafici raximah allahu tacaala ha loo daayo ummaddan ha loo daayo marka la leeyahay macnuhu ma aha ra'yu rijaal dadka ha loo daayo ma ahani waa fahamkii imaamuna shaafici uu ka fahmay kitaabka iyo sunnaha nabiga sala allahu calayh wasalam macnuhu waa sidaas ma ahayo shakhsi in lagugu xirayo ma ahan shakhsi ra'yigiis in diin lagaaga dhigayo ma aha waa kitaabkii ilaahay iyo sunnihii nabiga sala allahu calayh wasalam laakiin bifahmi waaxid min asalaf asaalix salafu saalix qof ka midoo cumdo ah ee cibaadadiisa iyo suhdigiisa iyo cilmigiisaba ummaddu ay wada qireen oo lagu wada ijmaaco kelimatulijmaac ay tahay fahamkiisa ha la qaato ujeeddada waxa la leeyahay marka sidaa waxay igu soo dhacday nimanka anugu hadda kuma eedayn markii masjidkoodii kaligay aamiin aan ka iri kuma aanan eedayn maxaa yeele madhabkoodii waa madhabkoodii marka qofka dadka in usuushooda iyo madaahibta iyo turaadka iyo dhaxalkooda loo ilaaliyo caalamka o dhanaa sidaa ka jira markaad fiiriso dowladdan sacuudiga markii aad tagtid hal masjid ma arkaysid dad wareegto oo laga qunuudayo ama basmalo loola jahrayo ma oggola dowladdu waxay qaateen madhabulxanaabila madhab aan ahayn lama iftoon karo meelaha caamkaana lagama sheegi karayo masaajidda waaweyn mana looga dhaqmi karo marka waa wax caalamka oo dhan sidaasna cabra alquruun way ahaan jirtay dowlad walba iyo ummad meel wada degan inay yeelato usus iyo madhab ay ka duusho oo ummadu ay isku raacdo laakiin waxaan innagu aanu ku jirno oo fawdada ah ummad qabtahay ma jirto fawdo iska socota qofba wuxuu rabo uun iska raacay waxaad arkay qof caamiya oo diintii iyo madaahibtii iyo adiladii iyo nusuustii iyo waxba sidaas aan ka ogeyn oo ku dhahaya war bisinkan in lala jahro bidco wey wax daliil kuma soo aroorin daliil muxuu yahay haddaad tiraahdo kuma sheegi karo daliilka naftiisa qeex muxuu yahay daliil qof walba wuxuu rabuu diin ka dhigtay marka
qof walba wuxuu doonaya diinka dhigta marka waxaa weeye ummadda in turaadkooda iyo dhaxalkooda loo ilaaliyo waxaa ku jira sharaftooda iyo suu danni inaan diinta laga qaadin dadka caamada suurad xun aysan ka qaadin وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين ومن بعدهم يرون وحي عقيدين أن يرفع الرجل صوته بتأمين ولا يخفيها وبه مذهب كاس يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى شعبة والله سبحانه وتعالى أعلم